السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض وضيال كسر هذا برنامج حوارا وحنا كويجنا قطب كان وهذا لا سعنده مالنتي اللي بعده كسر دجالة ورد حياة على مدى السوماليلاند على مدى حرين تا قبل كسر جودها نسيسي هذا ما أنت دجالة يا كذا عيد طبعا على مدى الجماهير تاعي اللي هي بورتا سيد طبعا هي قبضتين هالكاسو هاي ماشي هاي كسر دخنجرين على مدى السوماليلاند مقالة ده kuwaasoo duqeymo waaweyn oo baan ka geystay farasmaalooyinka iyo dhismayaal dadweyne iyo xarumaha dadka dabcan ee ka caagan duqeymaha dagaalada marka laga hadlayo gudaha magaalada. Haddaba dagaalada shalay ilaa maanta si xiriir ah ayay u socdaan iyadoo ay dabcan wararku ay sheegayaan in dhinacyaduba ay qolada kale ay guul sheeganayso balse laakiin guusha ugu weyn jamaahiirta ayaa gaadhay la leeyahay maadaama ay meel ka mid ah meelaha ugu muhiimsanaa ee duqeynta magaalada ka socotay ay gacanta ku dhigaan. Cabdiraxmaan Afagaadho ayaa ila eegaya barnaamijka dabcan garabkayga fadhiya arrimahan aan wax ka weydiin doono. Cabdiraxmaan bal soo dhow maanta maalintii labaad dagaal ayaa socda bal khasaaraha iyo saameyntu maanta la dagaalkaas. بسم الله الرحمن الرحيم وحيدين وأنا كسلامي هذه أي دعوة يا شباب بعد السلام دجال كاسي شلي وبلوض أنورتي أنا كبلوض فلال قاعد معها ودنك السومالي لان كيماني وركنسة تقيمه يا بربر السعودي وعن لو كلابي إنه مقالة ده لو سمي ما أنتنا سدوا كلوا بلوضي أو السعودي waxaana yani hadda la sheegayaa guulo inay Somaliland laga gaadhay oo Khartoum ay hadda ku taamayso buurta sayidka oo dabcan meel istiraatiiji ah dhifays madaafiicda magaalada lagu duqeeyay ay taallay hadii sida la sheegay sawiraanta aan ku arkayna ay tahay oo daroonta hadda midlan SSC ay soo sawirtay iyadoo oo aagi la duqeynay la jabiyay lana qabsaday hadii ay saas صورة قشوا ودجال كان نتيجة سوسيد على كل دماته يعني مجالات الأسعانة أو الدخية أو ضمبة ودماته مش كلية مدافع كسر قاعد يسوي اللي قد دقيني اللي هو حيس بيه هالكاسح هدي هو كاي كلا بحان يهدي اللي هو قبض ضبع دقيني الأسعانة ويزديني دجال كي حلي دعي نتيجة ديسا السجن ولا أركي دفاع فربنا لما كلا قبضنين وخاينت مجالات اللي هو جيستمر كل جاي معدنه إما شباب المتجرين أفرقوا في ملحس عشان دعوة فاجرتي وطبعا دو قيمه هاي جيستين لكن عيدا كعكتة ده عيدا أنتوا صور تمام ماشي قبضنين طبعا عيدا شباب ولا يقول يستي هذا اللي دون دبه له عليه تعرف فاهم فربنا وأنت داير ما يسن الحين ميت كان ما أنت سي بورس وابور ديران وابور إيجي دور له وابور استراتيجي عيدنا وابور نينك هايستانا سي لوغا قبصة هاي أدك تاي نينك هايسنين نسي وكوي مادة هاي أدك تاي بورتاس هدي جماهيرتو هاي قبطي وبا بعدكتاي وقول تاريخي وقول دقالو أدي أدوي قوشاس بورتاس لسو صوري waxay uga dhigan tahay laascaano inay xorowday laascaano xor ma ahayn laascaano waxa loo saaraa buurtaas waxaana laga duqeynayay markasta oo la damco way Cabdiraxmaan dabcan shalay dagaalada ayaa dhacay walow khasaaro soo sibadnay marka la eego duqeymaha waaweyn ee magaalada ka geysteen Somaliland maantana waa maalintii labaad dagaal ku socdo dagaalkan Somaliland xanarkii sawiraan la soo dhigayo la leeyahay calanka Somaliland baa la saanood meel ka mid ah dib looga taagay amaas iyaga laftooda maxaa ka jira Somaliland waxba kama jiro Somaliland mid isweydiin laba jirta oo inay yani dagaalkeeda aan la isu raacsanayn tuhun ah uu jira oo dhulkan Igoori iyo maxaan ku dhahay ilaa og dhulka wadada dheer waxaa degan reerkan laascaana degan waxaana sii mara oo saadka u soo mara oo dhaawac u sii mara gurmudka u soo mara ciidamada goojacada degan hadii daacad laga yahay marka wadadaas dadka degan way xir lahayn lama soo dhaxmareen laakiin laascaana gudaheeda hadda laguma kala qaybsana calan Somaliland lagama taagi karo kama taagna goojacada ugu sugaysa meesha Somaliland deganta iyo buurtan aan ku dhahay hadda maanta laga qabsaday
buurtaas waxay uga dhigan tahay in laga qabsaday Somaliland inay mar labaad laascaana laga qabsaday استراتيجي ku taale waa buurta laga xanuujinayo laascaano ciidan hadii boqol laga dilo xataa ciidan xanuun ma aha laakiin hal gabadh yar oo suuq marayso xabad ku dhacday ama duqeyn ku dhacday ayaa ka xanuun badan waayo tan waa birmageedo waxyaabaha ka caagan yahay birtu ka caaganta Somaliland laakiin ma inaan garan birmageedadii kaga argoosta isdhihi jireen waa dhaqankii TPLF oo kale ninka maxaan ku dhahay ururka lagu tuhumo haday ayeydii nooshay hooyadii lama taabanayn ayeydii baa jilicsan oo la aaday saas oo kale weeyaan waxay dhaqan way hadii ay buurta qabsadeen jamaahiirtu inay buurta si haysanayaan oo degayaan iyo inay ka imanayaan iyaga laftooda maxaa haday qabsadaan sida difaacyadii hore qabsadeen baa ay u haysteen xeradii laga qabsaday guulwadaha laga qabsaday mahad cambasho kale loo hantay dhulkii ay qabsanayeen siday u hananayeen wali dhul intay qabsadeen jamaahiirtu ay ka tageen ma jiro dhulkay qabsadaan way haystaan wayna sii siqayaan haday qabsadeen oo meel istiraatiiji tahay ma qabo in laga qaban karo ma qabo in laga kicin karo inay waliba buuro kala ku sii qabsanayaan yaan aaminsanahay buurta guushooda hor taagneed ee laga duqeynayay laascaano laga duqeynayay ciidamadooda infantryga laga duqeynayeen buurtan ay ahayd way dagaaladii mar kale ay soo cusboonaadeen maalmo la kala nastay kadib odayaashii garaadada ahaa dadaaladii ay wadeen dawladda federaalka ay ku tagayeen iyo iyaga laftooda la soo dhaweynayay shalay waan arkay xaguu ku dambeeyay dadaaladoodii dagaalka ma ka hadleen iyaga laftooda garaad jaamac iyo qolihii garaadada xagee ku dambeeyay garaadadu qolo Nairobi aaday oo afayeenkii golaha odayaasha dhaqanka iyo garaadkii guud ee garaad jaamac garaad cali waxay aadeen Nairobi garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo maxaan ku dhahay garaade kale oo ku helaysan waxay aadeen Muqdisho kuwii Muqdisho way soo noqdeen guul bay kala soo noqdeen mahad celin bay sameeyeen waxyaabihii ay wateen dawladda federaalka way isku soo fahmeen qoladii Nairobi aaday ma aynan shaqadoodii wali soo gabagaboobin ama bayaan meena ka soo saarin intaan ka arkay qoladan markay timid garowe yimaadeen karaqay soo mareen way la hadleen ciidanka daraagiska iyo waxyaabaha lagu kala jabinayay ee lagu soo dhaxtuuriyay inay ka waantooban ama ka diyaar garoobaan bay kula hadleen waxay yimideen laascaano tartar dagaal iyo ma aynan bilaabin laakiin dagaalkan hadda waxa bilowday Somaliland dagaalkan hadda dagaal ay hadda qaatumo u diyaar garowday ama de awal diyaar bay isaga ahayd ay bilaabeen iyagu ma ahayn gulufka bilaabeen Somaliland ma bilowday way aad baad mahadsantahay kaasi waxa waa Cabdiraxmaan Afagaadho oo ila falanqeynayay dabcan dagaaladii maanta ka dhacay magaalada Laascaanood halkaas oo ay la sheegay in jamaahiirtu ay ku qabsatay buurtii magaalada laga soo duqeynay oo ahayd meel istiraatiiji ah ciidamada Somaliland oo ahayd marinka labaad ugu muhiimsan marka laga yimaado Gooja Cadde ay noqoto meelaha dagaalka dabcan ay ka socdeen ama ay duqeymaha ka geysanayeen barnaamijka xog waranaya daawanayseen soo dhawaada ayaan ilaahay saaxiibayaal barnaamijka ka xigay inta aynu ku kulmaynana waxaad ilaalina sidaayo nabadgelyo